waxaan ogaaday in midabka lipstick-ga saaxiibtay uu la mid yahay kii aan shalay ka helay jeebka ninkayga. isla markiiba waxaan dareemay in wax khaldan yihiin. Shaqada ayaan goor hore ka soo baxay. Markii aan guriga imidna waxaan dusha kaga dhacay ninkaygii iyo saaxiibtaydii ugu dhoweyd oo wada jira. Markii aan weydiiyey sababta ay sidan iigu sameeyeen, halkii ay ka xumaan lahaayeen, saaxiibtay waxay bilowday inay igu jeesjeesto oo ay caydo muuqaalkayga. aad ayaan u carooday, dagaal ayaana naga dhex bilowday. Sodohday ayaa qayladii maqladay oo soo gashay qolka, laakiin ima caawin. taas beddelkeeda waxay garab istaagtay oo ay u tacsiyeysay saaxiibtaydii ifiyaamaysay. waxaa soo baxday in sodohday ay wax walba la socotay. waxay si cad iigu sheegtay in ninkaygu uu lacagtayda uun iigu guursaday. aad ayaan u xanaaqay, laakiin ninkaygii ayaa si xun ii riixay. madaxa ayaan dhagax ku dhuftay, halkaas ayaan ku miyir doorsoomay. waxay u maleeyeen inaan dhintay si ay dembigooda u kariyaan. waxay igu tuureen meel god ah, laakiin si la yaab leh ayaan godkii uga soo baxay. waxaana i badbaadiyey aabahay oo la raadinayay muddo dheer. waxaa soo baxday in aabahay uu yahay bilyaneer weyn. intii aan soo kabsanayay, ninkaygii iyo saaxiibtaydii waxay dhigteen tacsi been ah, iyagoo dadka u tusaya inay ka xun yihiin geeridayda. waxaan go'aansaday inaan ka aargoosto. waxaan bixiyey lacag badan si aan isugu sameeyo qaliinka qurxinta. waxaana u beddelay muuqaalkayga mid aad u qurux badan oo aan la aqoonsan karin. maalintii arooskooda, waxaan saaxiibtay u soo diray hadiyad ah kabaduug ah oo ay hore u xiran jirtay. ninkaygii ayaa isku dayay inuu hadiyadaas iiga raaligeliyo isagoo aan i aqoonsan. markii aan goobtii arooska imid, ninkaygii wuu la yaabay quruxdayda. waxaan si ula kac ah u eegay lugaha saaxiibtay, isna wuxuu ku qasbay inay xirato kabihii duuga ahaa ee aan u soo diray. dhowr maalmood kadib, shirkadda ninkayga ayaa qabsatay munaasabad weyn. waxaan diyaariyey muuqaal sir ah oo shaashada weyn laga shiday, kaas oo dadka oo dhan u bandhigay runta dhabta ah. ninkaygii ayaa argagaxay oo isku dayay inuu baxsado. isla xilligaas waxaa soo baxay ninkii aan markii hore jeclaa si uu ula xisaabtamo ninkayga. dagaal iyo sawaxan ayaa goobtii ka dhashay. waxaan go'aansaday inaan gacantayda ku burburiyo ninkii ifiyaameeyey, anigoo dadka hortooda ku bahdilay. kani waa bilowga aargoosiga.